waxay qalbigeeda ka ilaalisay gubasho. waxay go'aan adag ka qaadatay samaynta xiriir jecel, balse waqtigoo isguraya ugu dambeyn waxay xiriir la samaysay midkii ay islahayd waa furihii noloshaada iyo badbaadiyaha qalbigaaga. bilo badan oo farxad la tusinayay iyo nolosha iftiinkeeda oo looga dhigay nuur aan caad saarnayn, waxay qalbigeeda si fudud ugu aamintay midkii mudnaanta ay siisay. isma lahayn calaf mooye murugo kale xaggiisa waad kala kulmi doontaa, balse doontii jaceylka oo ay islahayd waa uu kula saaran yahay isaga, waxay u noqotay doonta mid badda dhex bartanka ka joogta oo iyadoo qura ay saaran tahay. balse dhib ka gaaray iyo dhibcaha ilma indhaheeda ka yimid intaan ka sheekeen, bal dulmar kooban aan ku samayno waxa isbedelay. qalbigeeda midkii ay u hibaysay waxay wada socdeen muddo badan, waxaana dhex maray xiriir jecel oo muran aan lahayn. balse markii arrinta guurka ay timid ayay bilowday qurxinta guriga ay degi lahaayeen. kama ahayn jaceylkaaga xujay, balse dhaqaalaha uu soo diray iyo waxay iyada ku kabtay ayay ku qurxisay guri ay islahayd waad ku noolaan doontaa. balse markii uu yimid halkii ay joogtay ayay wax kasta isbedeleen. kama qasno iyada oo waxa ay soo kaxaysay isaga, waxaana ay ku tiri ku nuursa gurigeenna waa kan. laakiin hadal wadna istaag ku ridi rabe ayay kala kulantay gabadha wiilka. kadib markii uu sheegay in xaas ay hore u kala tageen, uu dib ugu laabtay. aamusnaan dhowr maalin, isla hadal xagga qalbiga, caloosha waan cunto maalmo aysan geyn, hurdadii badneed oo soo jeed isugu beddeshay. intaba gabadha waxay ku noqotay arrin aysan filanaynin. kaba sii daran waa laba mid dooro: guurka xogtiisa familka hore ay u ogaayeen inaan dhiganno, iyo naagta aan qabo oo aan dartaan u fasixi karin. waa laba arrin oo xanuunkeeda leh, islamarkaana gabadha la hordhigay. weli maysan bogson. gabadhaana waxay la soo xiriirtay shabakadda Sharmaarka Media. adiga maxaad kula talin lahayd, maadaama meel dhexe oo kalaabashadeeda ay adag tahay ay taagan tahay? fikirkaaga qaybta kommentiga fadlan inoogu reeb.